بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعنا ونكسن خيارتا نرجعنا iyo kuwana daawanaya meel kasto joogtaan dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga waraysiga oo xilligan oo kala aad kala socotaan Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Qodobada barnaamijka bandhiga waraysiga aan idinku hayo dhageystayaal iyo daawadayaal waxaa kamid ah haduu abaydmo gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo kulan maanta la qaatay safiirka dawladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxa ay ka wada hadleen arrimo ku aadan sidii dawladda Turkigu ay ula wareegi lahayd ama dib u dhis iyo dayactir ay ugu sameyn lahayd xarumaha jaamacadda Soomaaliya ay ku leedahay guud ahaan dalka. kulanka kadib ayuu waraysi uu kaga hadlayo arrimaha iyo arrimo kale oo ku aadan qorshaha guud ahaan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo dadaalkeeda waxbarasho halka uu marayo. waxaanu la yeelanay gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo ka warami doona arrimo badan oo ku saabsan jaamacadda. waxaan kaloo barnaamijka bandhiga waraysiga aan idinku hayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. maalmo ka hor waxaa halka ka dhacay dagaal beeleedyo oo laba beelood oo walaalaha oo halka wada daga dhex maray iyadoo lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo beelahii walaalaha ee halka ku dagaalamayay. waxaana weli socda wada hadallo iyo dadaalo la doonayo in lagu soo afjaro colaadahaasi halka gacan ka hadalka sababay ee halka markii hore ka dhacay. iyana warar ku saabsan ayaad maqli doontaan iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo iyaguna dagaalada ku baaqaya in la joojiyo isla markaana xal la kala dhex dhigo beelaha Soomaaliyeed ee magaaladaasi ku dagaalamay. qodobada kale barnaamijkeena aan idinku hayo dhageystayaal iyo daawadayaal waxaa kamid ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya oo kooxo hubaysan ay ku toogteen bartamaha magaalada Nairobi caasimadda wadanka Kenya iyo ciidamada ammaanka dalkaasi oo howlgallo ka wada kuwaas oo sheegay inay ku daba jiraan kooxihii falalka dilka ah geystay. isaga iyo ilaaladiisa ayaana mudanaha baarlamaanka ee wadanka Kenya la khaarajiyay saaka goor hore. macluumaadyo ku saabsan ayaad maqli doontaan iyo wararka wadanka Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaanayso iyo kooxaha kala duwan ee wadankaasi oo iyaguna aragtidoodu ay sii kala fogaanayso. macluumaadyo iyana ku saabsan barnaamijka bandhiga waraysiga ayaan idinku soo gudbinaynaa. qodobada iyo qodobo kale oo dhowr oo ka mid yahay taliska ciidanka waa taliska guutada tobanaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ka hadlaya qorshooyin ku aadan sidii gabi ahaan loo xaqiijin lahaa meelaha haraadiga ay ku yihiin kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ee gobolkaasi Hiiraan. qorshooyin sheegay inay u dejiyeen oo wadooyin badan ciidamadu ay degi doonaan iyo meelo kala duwan. iyana macluumaadyo ayaad maqli doontaan oo barnaamijka idinku soo gudbinaynaa. caqiil ayaa dhinaca raadiyaha farsameynaya farsamada iyo habaynta ama kaamirada barnaamijkuna waa saaxiibkay Axmed Carab. aniga warcadiya barnaamijka oo idin la socodsiinaya asxaab kala duwan oo igala qayb galaysa ku soo dhawaada bandhiga waraysiga ee Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka. waatay dhageystayaal iyo daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka bandhiga waraysiga. maamulka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed waxaa xarunteeda dhexe magaalada Muqdisho maanta booqday safiirka dawladda Turkiga u fadhiya magaalada Muqdisho. waxay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay sidii dawladda Turkiga gaar ahaan hay'adaheeda dhinaca dhismaha u qaabilsan ay dayactir ugu sameyn lahaayeen xarumaha jaamacadda ummadda ay ku leedahay guud ahaan dalka, isla markaana hawshaasi ay muhiim tahay oo ay ka wada hadleen labada dhinac maamulka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo safaaradda dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho. markii kulanka uu soo gabagaboobay kadib gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed mudane Maxamed Axmed Jimcaale ayaa waryaheena Axmed Cali Kaahiye waxa uu ku waraystay xafiiskiisa isagoo weydiiyay bal heshiisyadan iyo qorshahan Turkigu ay ku doonayaan in dib u habayn iyo dib dayactirba lagu sameeyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xarumaheeda dalka. bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantihiin dhammaan
bahda TV-ga qaranka maantayto oo sabti ah oo bisha 7 ay tahay 2015 waxaa booqasho noogu yimid halkan safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Olgan Baker iyo madax kale la socotay oo ay kamid yihiin ninka mashaariicda ugu qaabilsan muxuu ahaa hay'adan leerada Tika ugu qaabilsan ayaa meesha noogu yimaadeen booqashadan waxay la xiriirtay howlaha guud ee dawladda Turkiga ay ka wado dalka Soomaaliya oo ah sidii dalka dib loogu dhisi lahaa dibna loogu soo celin lahaa jaamacadda ummaduna waxay ka mid tahay meelaha laf dhabarka u ah dalka dib u soo nooleynta dib u soo celinteedu ay qayb muhiim ka qaadanayso in dalka dib loo dhiso dhismayaasha saraha iyo jidadka waxaa ka muhiimsan maskaxda dadka in la dhiso oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo la rabo dalkan inay noqdaan kuwa hana lahaa in khibradii iyo farsamadii iyo aqoontii ay dalkooda ku hana lahaayeen xagga dhaqaalaha ha noqoto xagga wax soo saarka beeraha iyo xoolaha ha noqoto xagga badda ha noqoto intaba jaamacaddu ay qayb muhiim ka tahay ayuu safiirku nagu soo booqday halkan waxaanu siinay warbixin taariikhda jaamacadda ummadda Soomaaliya goortay soo bilaabatay wixii ay ahayd jaamacadda ummadda sababihii loo aasaasay oo dantii guud ee laga lahaa iyo xarumihii ay lahayd iyo hadda waxay ka hayso iyo ka bacdi yaani dawladda hadda jirta oo madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo oo u aragtay jaamacadda ummadda soo nooleynteedu inay tahay arrin muhiim ah oo laf dhabar u ah dib u soo nooleynta guud ee dalka iyo dib u dhiska dalka marka warbixintaas ayuu naga dhageystay waxaan u sheegnay muxuu ahaa taxadiyaadka na hor yaala oo jaamacadda ummadda oo maantayto cusub waxqabadkeeda iyo waxyaalaha ay dalka u qaban karto iyo meelaha ay hiigsanayso ayaanu warbixin ka siinay marka booqashadu sidaas ayay ahayd kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Dr. Maxamed Axmed Jimcaale oo ka hadlayay kulankii uu la qaatay safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah oo hay'adda Tika ee dhinaca dibadhiska u qaabilsan dawladda Turkiga arrimo badan ayayna ka wada hadleen kadib markii maanta safaaraddu ay ku wareejisay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qalab isugu jira kombiyuutarro iyo qalab kale oo jaamacadda howlaheeda lagu sii anbaqaado wariyahana Axmed Cali Kaahi ayana xafiiskiisa gudoomiyaha ku soo wareystay weli barnaamijka bandhiga wareysyada ayaa la socotaan radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka ayuu kaga imaanaya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu soo waramayaa in maalmahanba ay ka taagnaayeen xiisado colaadeed oo u dhaxeeya beelo walaalaha oo halka wada daga iyadoo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ku noolna ay ku guuleysteen in xabad joojin ay kala dhaxdhigaan inkastoo weli ay socdaan wada hadallo iyo dadaalo la doonayo in lagu xaqiijiyo guud ahaan inaanay soo laaban isku horimaadyadaasi gacanka hadalka ah ee halka ka dhacay oo khasaare kala duwan geystay waxaa iminka laynka si toos ah ugu jira wariyaha nooga soo warama Beledweyne Cabdishakuur Cismaan Cali Cabdishakuur ma maqlaysaa wanaagsan Mustafa Raade haye Cabdishakuur bal waxaad iga warantaa dagaaladan ka dhacay Beledweyne beelaha walaalaha u dhaxeeyay iyo khasaaraha ay geysteen iyo ilaa hadda xalkii laga gaaray Mustafa sidaad sheegtaba 48 saac ayna ka soo gudubnay ayaa dagaaladana waxay hayeen kuwa si goos u dhacay walow dagaalkii uu khasaaraha badnaa oo saaka u dhacay labada maleeshiyo beelood dagaalamay ayaa waxa dagaaladii isla galeen waxa dhaawacyo ay soo gaareen in ka badan 20 ruux oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda caafimaad isbitaalka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhimashadana inta la xaqiijiyay waa ilaa 4 ruux ayaa ku geeriyootay shalay iyo maanta dagaaladii dhacay inkastoo aysan dagaaladan saameyn aysan ku yeelanin socodka dadkii gaadiidka iyo waliba ganacsiga iyo waxbarashada intaba ayaa hadana waxa jira rasaas goos oo gaartay goobaha lagu dagaalamayo meel ka fog taasi oo sababtay in dad shacab ah oo xaafadooda ku sugnaa inay haleesho isla markaana
dhaawac halkaasi bulshada qaarkood ay kasoo gaaraan. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa waxa ay bilaabeen in ay xabadda joojiyaan oo ay la kulmaan odayaasha labada dhinac dagaalamaya, waxaana ugu dambeyn ay ku guuleysteen in xabadda la joojiyo, isla markaana saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka howlgala gobolkan Hiiraan ayaa dhinacooda waxa ay ciidamo isku dhafaageeyeen goobaha lagu dagaalamay, waxaana wixii ka dambeeyay 12 duhurnimo ee maanta guud ahaan beledweynaha kasoo noqotay amnigeeda mid aad u wanaagsan, isla markaana ay joogsadeen dagaaladii dhacay. waayahay marka cabdishakuur adoo hadalka sii wadan doona odayaasha iyo waxgaradka xabajoojin marka laga reebo heshiisyo kale oo beelahaas inaanay dagaaladaas dib usoo laaban iyo inay maaragtay dhinacyadaas ku qanciyaan inay xalka iyo nabadda qaataan, heshiisyo noocaasa ma jireen mise ilaa hadda xabajoojinta un bay ku eg tahay oo waxaa laga yaabaaba inay mar kale iska bilaabato inkastoo aan ilaahay ka rajaynayn inaysan dib ugu soo laaban? run ahaantii odayaasha dhaqanka tan iyo markay bilaabeen in la joojiyo rasaasta ayaa xooga waxay saareen in la joojiyo xabadda dhexeysa marka horeysa, wixii ka dambeeyana odayaasha ay diyaar u yihiin labada beelood ee walaalaha ee dagaalamaya waxyaabaha ay kala tabanayaan in loo kala qaado. mana jirto ilaa haatan wax rasaasa oo ka dhacaya nawaaxiga xaafadda Walwadaag oo ahayd goobta lagu dagaalamay. odayaashana waa kuwa dadaalkooda aada u wada, maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada dawladana aad ay u taageerayaan in aysan soo noqonin dagaalada noocan oo kaleeta oo sanadihii u dambeeyay aanan looga baran magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, walow bulooyinkii aynu kasoo gudubnay deegaanada Deefow iyo Kabxaley iyo Jeeri ay ka dhaceen dagaalo kale oo u dhexeeya laba beelood oo walaalaha oo deegaanadaasi wada dega oo haatan lagu guda jiro dhinacooda in lasoo afmeero si gobolkan Hiiraan oo ku yaala bartamaha Soomaaliya, isla markaana ah gobol dawladda si rasmi ah gacanta ugu hayso marka laga reebo deegaanada tuulooyinka in horumar fara badan dawladda ay ka hirgeliso. gudoomiyaha gobolkan waxa uu sheegay in dagaaladan beelaha walaalaha dhexmaraya inay xagadgeliyeen howlihii horumarineed ee uu gobolku ku tallaabsan lahaa. waayahay cabdishakuur, dagaaladan asalkooda maxay ka bilowdeen, maxaa la isku hayaa ilaa hadda xoogaha hesho maxay sheegayaan? musafrade markii aad u kala gasho waxyaabaha sababay dagaaladan inay dhacaan ayaana run ahaantii ku habbooneyn dhanka miidiyaha, maadaama waxyaaba iska basida ay yihiin. walow odayaasha iyo dhammaan aqoonyahanada sidoo kaleeta ee kusugan gobolkani ay dadaal ugu jiraan sidii xarunta gobolka Hiiraan ee beledweyne aysan mar dambe saas ugu dhicin. waayahay dagaaladii kale iyaguna Deefow iyo deegaanada kaleo beledweyne ka fog ka dhacayay muddooyinka lasoo dhaafay inkastoo maalmahan xaalku qabooba, iyana xaggey ku dambeeyeen, xal ma loo helay ogaantaa? dabcan dagaaladaasi oo labadan isbuuc ama erada 3 isbuuc aan kasoo gudubnay aan wax dagaalaha ka dhicin deegaanada Deefow iyo Kabxaley ayaa maleeshiya ku dagaalamay haatan socdaa waawaan iyo sidii labadoodaba laisku horkeyn lahaa miiskooda hadalka, maadaama dagaalada ay isla galeen dad badan ay ku dhaawacmeen, kuwo kalena ay ku dhinteen. waxgaradka iyo odayaasha dhammaan ku nool gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka iyo saraakiisha AMISOM ee gobolkani ka howlgala waxay jihdiga ugu badan ku bixinayaan sidii deegaanadaasi Deefow iyo Kabxaley oo ah dadweyne beeraley iyo daaqsin xoolo isugu jira labadaasi beelood ee walaalaha in la dhaxdhigo heshiis waara oo ay sidii ay hore u wada noolaayeen wanaagii iyo horumarkii barwaaqadii ay ku noolaayeen inay dib ugu soo noqdaan, maadaama ismaandhaaf labada beelood soo kala dhexgalay ay ka bilaabday calaadaas. waayahay aad baad umahadsan tahay waryaheena cabdishakuur cismaan cali oo nooga soo warrama gobolka Hiiraan isagoo ku sugan beledweyne ayuu khadka telefoonka si toosa ugu warramayay oo iiga warramayay dhacdooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan dagaalkii ka dhacay magaalada beledweyne oo hadda xabajoojin hordhaca la kala gaaray labadii beel ee halkaa ku dagaalamay ama maleeshiya beeleedkii halkaa ku dagaalamay. dhinaca kalena xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu isaguna ku baaqay in dagaaladaasi la joojiyo. waxa uu xildhibaanku si gaar ah oo ka mid yahay xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Hiiraan
waxa uu maanta maraan waraysi la yeeshay uu ka waramay in dagaaladaasi la joojiyo isagoo aada u bogaadiyey odayaasha iyo waxgaradka qayb ka qaatay in xal loo helo dagaal beeleedyadaasi ka jira magaalada beledweyn guud ahaanna ugu baaqa shacabka inay kaalin ka qaataan sidii xiisadahaasi oo kale looga hortagi lahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaan idiin soo gudbinaya. bismillahi raxiim sida ku qabtaan maalintii shalay ayuu dagaal ka dhex dhashay laba beelood oo wada degan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne runtii haddana wuxuu sii xoogeystay saaka ayuu sii xoogeystay nasiib wanaag ciidamadii amisom ee kusugnaa gobolka hiiraan sida hiil qaran hiil walaal iyo ciidamadii etoobiyaanka iyo mataqaanaa kala dhex galay inkastoo oo wararka hadda iga soo gaaraya ay aada u gurmadeen odayaasha dhaqanka mataqaanaa oo gobolka hiiraan oo runtii aan aada halkaan anoo fursada qaali ka faa'idaysana ugu mahad celinayo dadaalka ay sameeyeen dhexgalka ay sameeyeen anu shaksi ahaan iyo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan magacooda ku hadlaya runtii aad baan ugu xunahay dagaaladaas dadka walaalaha oo mataqaana soo jireenka oo halkaas degan inay markaas dagaalo ay dhex maraan aadaan ugu xunahay intii dhimatana waxaan leenahay alla naxariisto intii dhaawacana waxaan leenahay ilaahay mataqaanaa caafimaad ilaahay asiyaabeen waayahay marka xildhibaan ahaan dagaaladaas xildhibaanadii gobolkaas ku jeeda in lays abaabulo dagaaladaas ugu yaraan xal laga gaaray ama laga gaaro oo aad meeshii tagtaan qorshaas ma jiraa mise isleedahay waa la xallin karaaba hadda anigu waxaan isleeyahay mataqaana waa jira qorshahaas oo haddaba goordhow waxaan rabaa inaan annaga koox xildhibaanaha oo reer hiiraan inaan arrimahaasaan ka wada tushano waa taqaana haddii safar la aaday haddii aan qorshaysano inaan baxno oo aan aadno magaalada gobolka hiiraan aadno magaalada beledweyne aadno diyaar garow waa iska dareemi kartaa arrimahaasna waa ka wada hadlaynaa laakiin waxaan aaminsanahay odayaasha dhaqanka sidaa kuu sheego gobolka hiiraan oo maanta gurmad xoog la sameeyey kala dhex galay iyo waxaan aaminsanahay in ay mataqaana arrimahaas xal ay ka gaari doono saas ayaan aaminsanahay. waayahay baarlamaanka maalmo dhow fasaxuu geli doonaa fasaxaas marka la galo qorshooyin ma jiraan oo baarlamaanku dabcan xildhibaan kasta goboladiisa goboladooda tegi doonaan oo maaragtay qorshooyinkaas ma jira in xildhibaan kasta gobolkiisa tago maaragtay bulshadii la kulmo xaaladeedu ka warqabo de sidaad ka warqabtaan kulankii 35aad qabsoomay 14 February 2015 ajendooyinka waxaa kamid ahaa in xildhibaanada mataqaana maadaama soo dhow yahay xilliga fasax soo dhow yahay lana sugayo kolley kalsoonisiinta xukuumadda la sugayo markay dhamaato kadib in xildhibaanada gobol kasta qof waliba xildhibaanka kasoo jeeda gobolkiisa inuu aado anay tusaalahaan waxaan kasoo jeeda gobolka hiiraan sidoo kale asxaabo kale waa jiraan inaan halkaas aadno marka guddoomiyaha baarlamaanka uu xildhibaanada u qeybiyey documenti sharaxaya waajibaadka laga rabo markaas xildhibaanka laga rabo oo tilmaam ah tusaale ahaan marka kasoo qabto markii lala kulmo beelaha markaas degan gobolka hiiraan marka kasoo qabto in la weydiiyo waxyaabaha mataqaana waxyaabaha taagan hadda dhibaatooyinka hadda markaa taagan ama colaad ha noqoto ama ha noqoto xagga adeeg bulshada ha noqoto waxyaabahaas in la weydiiyo warbixinta laga soo aruuriyo sida kale say u arkaan xiriirka wada shaqaynta ee golaha shacabka iyo mataqaana iyo deegaanada dadka ku nool sida loo arko siday u arkaan hoggaanka sare ee dalka siday u arkaan marka macluumaadkaas inaan soo ururino kadibna aan kala fadhiga lixaad hadduu alla idmo markii la furo in markaas aan kasoo jeedino wixii warbixina aan markaas kala soo kulnay maaha keliya maaha xildhibaanada sidoo kale gobolada kale ay kasoo jeeda ayagana sidaasoo kale laga raba inay mataqaana warbixin kasoo ururiyaan oo ayagoo markaas la tashiyo la sameynaya dadka markaa beelaha markaa degan gobolkaas. iminka magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaa maanta lagu dilay mudane ka tirsan baarlamaanka wadanka Kenya kooxo hubaysan ay ku toogteen bartamaha magaalada iyadoo ciidamada ammaanku ay weli ku daba jiraan kooxihii falkaas geystay sida wararkii ugu dambeeyay xaqiijinayaan. waxaa laynka hadda si toos ah ugu jira magaalada Nairobi wariyahana Cilmi Maxamed Waar oo Kenya nooga soo warama. Cilmi haddaad maqlayso bal xagee wax marayaan ilaa hadda hay-adaha amniga dilka xildhibaankan iyo wixii kusoo kordhay. waa mahadsan tahay mustafuur cadeeye dilka xildhibaanka laga soo dirto kauntiga kabeso ee lagu magacaabo George Muchal waxa uu dhacay xalay abaar saacad marka ahayd 8 saac iyo bar ama 9 saac sida uu ku qareeshiyay gaarigiisu watay isla markaana bartamaha magaalada Nairobi marayay gaar ahaan wadada weyn ee Nairobi Kenyatta Avenue halkaasi oo wadada inta badan kala qaybiyaan bood waxyaabaha loo yaqaano oo inta badan gawaarida ay ku kala wareegaan xilli uu ku hakaday
ayaa gaari nooca dropkiska loo yaqaano lagu horjeejiyay islamarkaana dad la sheegay inay afku duubnaayeen oo qori artifood isagana wato ay ku xabadeeyeen waxaana isla goobta ku geeriyooday xildhibaan George Muchai darawalkiisii iyo sidoo kale laba waardiye oo la socotay waxaana isla markiiba goobta yimid ciidamo boolis ah oo sheegay in ay saxaax ka samayn doonaan kamerooyinka waxbarashada ee CCTV-ga oo wadada highway-ga Uhuru Kenyatta Avenue ku xirnaa ilaa haddana boolisku dabadal ay hayaan arrintaasi waxaa saaka fajaca la soo kacay dhammaanba dadka shacabka ee ku nool dalka Kenya arrintan ay ahayd arrin uguga oo ku cusub oo weligood aysan dhagahooda marleen qof mas-uula oo darajadiisu ilaa heer xildhibaan ay gaarsiisan tahay lagu dilo bartamaha caasimada Nairobi waxaa arrintaasi saaka darbada cambaaray madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto iyadoo madaxweynuhuna uu sheegay in dabadal lagu hayo dadkii ka dambeeyay kooxaha ciidamada booliska ay soo qaban doonaan sharcigana la horkeeni doono sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Code Raila Odinga ayaa isaguna ku tilmaamay arrin maxkamada oo shacabka dalka Kenya ay ka naxaan waxaana uu dowladda ama uu ka dalbaday in baaritaan lagu sameeyo arrintaas dadkii ka dambeeyana maxkamad la soo taago islamarkaana ammaanka ee dowladda wax ka qabato ilaa hadda baaritaan ayaa socda boolisku in aysan cadeynin ilaa iyo hadda cid ay usoo qabteen dilka xildhibaan George Muchai oo la dilay xalay waaberigii iyadoo ilaa iyo haddana sidoo kale siyaasiyiin fara badan ay cambaareynayaan arrintaas islamarkaana ay dowladda ka dalbanayaan in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay dilkaas waayahay cilmi dabcan xildhibaanka waxaa naloo sheegay in laba ilaaladiisa iyo qof darawal ama gaariga u waday oo gaariga u kaxaynayay la dilay iyana maxaa ka jira waa jirta arrintaasi xildhibaanku keligiis ma aysan geeriyeen war cadeeye waxaa lala dilay darawalkiisii iyo sidoo kale laba waardiye oo la socotay xildhibaankan waxaa baarlamaanka dalka Kenya soo galay bishii Maarch sanadkii 2013 waxaana uu kusoo kalay ku jirtaa amaba isagoo xisbiga TNA la yiraahdo in dalkiisa kasoo galay waxaana ay noqonaysaa xildhibaankii ugu horreeyay ee ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya inta loo yahay taariikhda la toogto iyadoo xildhibaanada inta badan ama shaqal gaaray aadakii alla ay geeriyeen jireen islamarkaana waxaa haatan arrintan ay tahay mid si weyn shacabka dalka Kenya ilaa iyo saaka ilaa iyo maanta ay hadalhayeen oo saaka berigii lagu soo toosay xildhibaankan oo geeriyooday islamarkaana la dilay waxaana la sheegayaa in xildhibaanka sidoo kale ay daba socdeen warkiisa yiri xaaskiisa oo gaari ka dambeeya saarnaayeen xilligaasna ay kasoo baxeen maqaaxi ku taala Westlands oo fadhigiisa halkaasi kulan kula lahaa iyadoo la xaqiijiyey in gabadhiisa iyo weliba xaaskiisa aysan wax dhibaataa soo gaarin oo gaari kale ay wateen laakiin mid waxaa muuqaasa in la tilmaameysanayo in xildhibaanka oo keliya oo la doonayo in la dilo arrintaasina boolisku in ay hadda baaritaan ayay ku hayaan iyadoo sheegay inay saxaaxa ka samayn doonaan kaamerooyinka waxdhaqaasa oo ku xirnaa wadada Kenyatta Avenue oo xildhibaankaas lagu dilo waayahay cilmi dabcan bulshada guud ahaan waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida maxay dareen hoogelinaysaa arrintan iyo dhacdadan waddanka Kenya ka dhacday xildhibaankan lagu dilay iyo ilaaladiisa ilaa horacday dadka Soomaaliyeed oo ku nool xaafadiisii aad ay arrintan u hadalhayeen marka la eego saasaanka mudaraadka sida xildhibaankan loo dilayna waa sidii milishyaadkan ay wax u dili jireen inta badan oo in gaari ay ku horgeeyaan gaari kale islamarkaana ay dilaan dhammaanba inta dadka gaarigaas saaran waxa ay muujinaysaa raadkaas inuu raad yahay milishyaadka al-shabaab sida ay u dhaqmi jireen walow dowladda ilaa hadda aysan cadeynin oo wax war aysan kasoo saarin in dilkaasi ay al-shabaab ku lug lahaayeen ama cid kale ay ku lug lahayd oo dowladda ilaa hadda ay sheegaysay baaritaan lagu hayo laakiin dadku cabsi ayay muujinayaan waayo qof xildhibaan ah oo darajadiisa xildhibaannimo gaarsiisan tahay oo bartamihii magaalada Nairobi lagu dilay oo ah weliba magaaladii ganacsiga oo magaalaha ugu ballaaran ah xilli weliba salaada subaxay soo dhaweyd arrintaas waxay ahayd hadalhayn u weyn dadka Soomaalidana markasta oo Nairobi wax ka dhacaan waa ay saameysaa waxaa ka muuqanaysa in Nairobi dhinac ka degan yihiin bartamaha Nairobi iyo Chile waxaa loo kala socdaa oo keliya wax ka yar 10 daqiiqo haddii aad gaari wadataa ama gaari madbiya la ahaado taasina waxay muujinaysaa sida aad ay isugu leeyihiin xaafadiisii iyo weliba bartamaha caasimada Nairobi oo waa Nairobi ay ka tirsan tahay xaafadiisii oo county ka tirsan marka dadka Soomaaliyeed markasta oo dhibaatooyin dhacaan walwala ay muujiyaan
watch loo bixiyo miraado ammaanka ilaali ay ciidamadu baaritaano ay sameeyeen oo dad fara badan la tarxiilay oo sharcilaanaha la qabtay kuwa kalena la xiray marka markastaba rameynaya ku yeelata dadka Soomaaliyeed waxyaabaha ka dhaca caasimada Nairobi oo Soomaalidana dhinacda ay aad u dibadiyeen waaye aad baad maasan tahay wariyana Cilmi Maxamed Waara oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya si toos ah khadka iga waramaya dhacdada ku saabsan mudanaha ka tirsan baarlamaanka wadanka Kenya oo kooxo hubaysan ay ku dileen magaalada Nairobi bartamaheeda isaga iyo ilaaladii iyo kaxeeyihii gaariga uu watay oo intooduba halkaa lagu dilay wixii warar iyo warbixinaha ka soo kordha inta aan barnaamijka ku guda jirno haddii ay baydmo waan idin soo baahin doonaa insha Allah wali barnaamijka bandhiga waraysiada ayaad la socotaan dhageystayaal iyo daawadayaal barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa markan dhinaca iyo wadanka Yemen gaar ahaan magaalada Sanca wararka halka ka imanay waxay sheegayaan inay ka sii darayso xaaladda wadankaasi guud ahaan gaar ahaan caasimadda wadanka ee Yemen Sanca waxaana mudaharaadayaal aad u fara badan ay maanta isugu soo baxeen gudaha magaaladaasi iyagoo ka soo horjeeda xoutiyiinta talada wadanka la wareegay iyo macluumaadyo kale waxa hadda khadka si toos ah ugu jira wariyahana Jacfar Maxamed Kukay Jacfar ma maqlaysaa Hello Jacfar Hello Jacfar Maxamed Kukay wariyahana nooga soo warama magaalada Sanca ee wadanka Yemen ayaan rajaynayaa in khadkan mar kale dib ugu soo celino marka aan ku laabano haddii ay baydmo oo noo sharaxo bal macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladda guud ee wadanka Yemen iyo ilaa hadda xaalku sida uu yahay oo maalmihii ugu dambeeyay warar isi soo taray ay sheegayaan in xaaladdu ay sii cakirmayso kadib markii kooxaha shiicada xoutiyiinta la yiraahdo ay la wareegeen meelo badan oo wadanka kamid ah gaar ahaan aqalka laga aramiyo wadanka Yemen oo hadda ay hayaan madax badan iyo dawlado badan oo caalamka kamidana waxay cambaarayeen falalka kooxaha xoutiyiinta dadka shacabkana waxay isugu soo baxeen isu soo bax balaaran oo ay kaga soo horjeedaan xoutiyiinta inay la wareegaan qaybo badan oo wadanka ku yaal mar kale waxaa ku soo laabtay khadka wariyahana Jacfar Maxamed Kukay Jacfar ma maqlaysaa haye Jacfar bal waxaad nooga warantaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee wadanka Yemen gaar ahaan Sanca وعدي طبعا مجالات صنعاء وحرون وطن كيمن مالمي لصوت عفاين كستو حالة الجنان الآن من عطية صدى أتجيكي حدنا لغسوا بالله جمعيني شليكو إلى ما أنت ويسيق قرد الجنان الآن تغسيك دي مركي كوعدا أنصار الله الحوثيين ويجب اللو أركي مركي هربين يفدين بداية سقف صدين حدنا أي قاعدين اللاغويين أموغدي كوا أي كنا ما يسكرين أفدين بجودي taasoo ahayd inay soo saareen dastuur cusub isla markaana ay kala direen golihii baarlamaanka dalka Yemen isla markaana ay sheegeen sidoo kale in ay soo magacaabayaan golo kale oo ka kooban 551 xubnood oo soo dooran doona iyagana ama soo xuli doona 5 xubnood oo noqda hoggaanka dalka oo golaha madaxtooyada loogu magac daray oo boostii madaxweynaha gala ilaa muddo 2 sanadood intaas waxaa ka wada sareeya golaha sare ee kacaanka oo xukuumadda ومحمد علي الحوثي ninka la yiraahdo uu hogaamiyo yahay kuwaasoo iyagu ansixinaya ama badiidaya wax walba oo ay golahaasi soo qaataan waxa kaloo golaha 500 looga fadhiyaa sida iclaankooda ku jirtayba inay soo xulaan qof soo dhisi kara xukuumad oo boodkii ra'iisul wasaaraha geli kara muddo 2 sanadood ayay sidaa ku soconaysaa xaaladda dalka Yemen ilaa laga gaaro bay yiraahdeen heer dastuur wadanku uu yeesho madaxweynaha ay ku soo doortaan waxaa jiray arrimo badan oo kala celina oo warcelin oo arrintaasi ka soo baxay axzaabta dalka Yemen guud ahaan waa ay ku gacan saareen arrintaasi waa ay diideen waxa ugu dambeeyay xisbiga madaxweynihii hore ee talada laga dooray Cali Abdullah Saalax oo iyagu bayaan ay goordhow soo saareen ku sheegeen
in ay gebi ahaan ku diidan yihiin afgembigaasi ay ku dhawaaqeen kooxdaasi ansaarullahi xuutiyiinta islamarkaana waxay uga baaqeen shacabka in ay soo baxaan oo ay muujiyaan sida ay uga soo horjeedaan go-aanadaasi ay qaateen sanca oo keliya maaha gobolada dalka sidoo kale dicid iyo id iyo macrib iyo shaqwa dhammaantood waxaa ka jiray maanta ilaa iyo xalayba xilligii lagu dhawaaqay go-aankaasi dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda arrintaasi marka hadda waxay u muuqataa xaaladdu inay kacsan tahay lagana dhul sugayo waxaa xusud mudan in golaha iskaashiga ee gacanka carbeed oo isagu kulan isugu yimid ay sheegeen in arrintaasi aanay iyagu u arkaan afgembi islamarkaana aanay wax xiriira iyo wax tacaamul aanay la yeelan doonin dalka yeman ilaa xaaladda hadda uu ku jiro wax laga bedelo waayahay jacfar marka mustaqbalka yeman maxaa lagu tilmaami karaa markaad qiimeyso kooxahaas kala duwan dareenka shacabka iyo dowladaha kale carabta ama haadaan ama dowladaha kale caalamka aragtidooda ku aatan xuutiyiinta iyo damacan isbeddelka ah maxaa guud ahaan yeman maxaa laga filan karaa waqtiyada soo socda dabcan deriska ayaa ugu horeeya oo wadamada deriska ah oo wadamada khaliijka ama gacanka carbeed laysku yiraahdo ah oo golaha aan hadda ka dhawaajinay ku midaysan si toos ayay uga soo horjeesteen waxaana muuqata in arrintaasi ay saameyn adag ku yeelan doonto xuutiyiinta waxaa kaloo muuqata in dhinaca gudaha lafahaantiisa cadaadis xoogan ay kala kulmi karaan maarib oo kale oo iyadu caasimada aan aad uga fogeyn oo haddana hodan ku ah dhinaca gaaska iyo shidaalka korontada magaalada sanca laga isticmaalana halkaa laga soo shido waxa ay si cad u diideen xilli horeba iyagu arrintan xuutiyiinta ay wadaan waxay halkaas uruursi iyo ciidamo uruursiga ku jireen muddo dheer haddana waxay sheegeen inay dagaal diyaar u yihiin haddii gobolkooda ay qolyahan xuutiyiinta soo farageliyaan sidoo kale shaqwa oo derisla ah sidoo kale waxaa kaloo jirta magaalada sicis oo iyaduna ciidamadii dawladda ay caadi uga taliyaan laakiin ay kasoo horjeesteen go-aankan xuutiyiintu sicis maanay yaarin laakiin waxay u muuqataa in bayaankoodii shalayda iyo kulankii shalayka lagu shaaciyey dastuurkan cusub iyo xaaladan cusub ee dalka yeman uu galay waxaa baaq loogu diray goboladaasi oo dhan oo loo sheegay inay si nabadgeliyaan dalka ku soo raacaan hogaankan cusub waxaa muuqata marka in goboladaasi aan ka hadlayn oo dhan dibadbaxyo ay ka jiraan gobolka baydo la yidhaahdo isagana oon caasimada aada uga fogeyn dagaaladaas jira maantada ugu dambeysay dad fara badan baa xuutiyiinta looga dilay oo looga laayay marka waxay u muuqataa xaaladda hadda in ay noqoto laba uun mid warka siyaasadda ka faallooda ay sheegayaan kan koowaad oo ah in xuutiyiintu ay ku ekaadaan magaalada sanca iyo saddexda gobol ee ku dhow oo ah gobolka sacda oo iyagu ay kasoo jeedaan asal ahaan iyo gobolka la yidhaahdo xudayda oo waqooyiga ku yaala iyo gobolka la yidhaahdo damaan oo derisla ah sanca afartaas gobol oo keliya oo masaaxo ahaana aan aada u ballaarnayn ay ku ekaadaan oo halkaa un ay ka taliyaan islamarkaana ay awoodoodii aada u naaqisto wadankuna uu noqdo wadan kala xirxiran oo kala qaybqaybsan labada labaad oo ah in xuutiyiintu ay dagaal ku qaadaan gobolada diidan maamulkooda oo maarab iyo dicis ay ugu soo horeyso koonfurta dalka yemanna isaguna su-aal calaamad su-aal weyn baa saaran oo ah qaabka hadda ay yeeli doonaan muddooyinkii ugu dambeeyey koonfurta waxaa ka jira dibadbaxyo xoogan oo lagu doonayo ama loogu baaqayo shacabka goboladaasi degan oo cadan ay ugu weyn tahay in ay dib ula soo laabtaan gooriisitaagoodii in jamhuuriyaddii ay horey u ahaayeenba 90-kii wixii ka horreeyey ay la soo noqdaan yeman inteeda kalena ay ka go-aan waa cusub mudan calankii jamhuuriyaddii yemanta koonfureed in hadda goob walba oo magaalada cadana iyo gobollo fara badan oo koonfurta ku yaala uu ka sugan yahay oo uu ka babanayo marka haddii ay dagaal noqotona waxaa suurtagala in dalka yeman uu xaalad xun oo mid hadda uu ku jiro mid aada uga sii liidata uu faraha ama lugaha la sii galo haddii ay ku ekaadaan sanca iyo saddexda gobol ay ku dhow xuutiyiintuna ay u muuqdaan kuwo fashilmay oo guuldaraystay islamarkaana hankoodii siyaasadeed uu dhicisooday marka labadaasi arrimood baa hadda la saadaalinayaa ama laga dhursugayaa midda ay ku dhaqaaqaan qolyahan wadanka qabsaday ansaarullah waayahay dhinaca kale jacfar dooni dad soomaaliyeed dad u badan ay saarnaayeen oo waxaa jirtay maalmo dhoweyd ku qalimantay xeebaha waddanka yeman macluumaadyada doontaa la xiriira iyo dadkii doonidaas ilaa hadda maxaa warahoo laga helay
ilaa iyo hadda xaaladdu waa iska sideedii deyntaasi waxaa saarnaa haddii aan si degdega kugu dulmaro 49 ruux oo 19 ay Soomaali ahaayeen 18 waxay ahaayeen hal qoys oo qura qof ayaa ka baxsan marka Soomaalida la yiraahdo waxaana fikrada batay oo waxaa laga xumaada in Soomaaliya halkaas ka tirsayd oo ku afsaysay dhammaantood ay ku dhinteen ama ay ku geeriyoodeen deynta dhimatay marka laga rabo laba ruux oo kasoo badbaaday iyo qofkii qoyskaasi markii horeba ka baxsanaa oo isagana ka mid noqday intii soo badbaaday intii kale waxay ku dhinteen asoo laga badbaaday 17 sano intii kale ilaa hadda kasta ruuxba laguma hayo laakiin waxaa loo qinayaa in dadkaasi ay geeriyoodeen ama ilaa iyo hadda lagu la'yahay baaritaanana ay weli socdaan maxaa ahayd weli laba socdo oo ay wadaan ciidamada badda dowladda Yemen iyo hay'adaha arrimaha qaxootiga iyo caafimaadka dalka Yemen arrimaha qaxootiga u qaabilsanba laakiin ilaa iyo hadda wax ka soo kordhay oo ka soo cusboonaaday arrintaasi ma jirto marka laga reebo tiradaasi faraha badan ee halka qoys ka soo jeeday Soomaalida ee halkaasi ku naf waayay labadii qof ee qoyska ka soo badbaaday iyo qofkii kale Soomaaliga ah saddexdoodaba hadda waxay ku sugan yihiin xerada Al-Kharaj oo qaarkood oo caafimaadkooda iyo liidada halkaasi lagula tacaalayo waayahay aad baad umahadsan tahay wariyana Jacfar Maxamed Kuukaay oo khadka si toos ugu jira isagoo ku sugan magaalada Sanca ee wadanka Yemen noogana waramaya guud ahaan xaaladda wadanka Yemen iyo siyaasadaha iska soo horjeeda ee wadanka ka taagan si gaarana aan u weydiiyay doonadii dad Soomaali u badan ay saarnaayeen oo ku qalimantay meelo kamid ah xeebaha wadanka Yemen aad buu mahadsan yahay wariyana si toos ah isagoo Yemen ugu sugan ayuu khadka igu waramayay barnaamijka bandhiga waraysiyaada ayaad la socotaan taliyaha guutada 10aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xaruntoodu tahay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa uu sheegay inay wadaan qorshayaal ku aadan sidii meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshiyada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab jidgooyooyinka ay meelaha kala duwan tuulooyinka iyo dhulalka kale fogfog ay dhiganayaan ay qorshooyin u diyaariyeen qorshooyinkaas oo la doonayo in lagaga hortago damaca kooxahaasi ee ah inay tuugaalaysi ku joogaan gobolka Hiiraan Cornel Tawane Ahmed Gurey ayaa arrimahan wax ka weydiiyay waxaana uu iga waramayaa bal marka hore qaabka guutadan 10aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan loo aasaasay oo magaalada Beledweyne loogu aasaasay iyo qaabka hawshaas markii hore ay ku bilaabatay guutadan 10aad waxaa la aasaasay 2012 runtii mahad ka gaartay waxaa juhdi weyn geliyay ciidamada Hiil Walaal Amsom ciidamada Djibouti Hiil Walaal ayaa tababar u fidiyay markii hore ciidanku wuxuu ka koobnaa oo lagu aasaasay qaar maleeshooyinkii soo dagaalamay oo dagaalkii kula jira shabaab ayay ahaayeen kuwana ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hore ayay ahaayeen qaarna dhalinyaro loo yeeray oo raadiyaasha looga yeeray oo mutadawiciin oo ayaga iskood ciidanka u soo qortay ayay ahaayeen sidaas ay guutada ka koobnayd waxaa tababar siiyay ciidamada Amsom ciidamada Djibouti Amsom oo Hiil Walaal loo yaqaan tababar siiyay sida ayaa iyo dawladda Soomaaliyeed ee ciidamada ka tirsan macallimiin ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed hore macallimiin ka tirsan ayaa tababar siiyay muddo hal sano ayaa tababarkaas socdo qayb mar ayaa la tababaray marka tababarkaas oo xerada lama galay lagu sameeyay guutada saa ayaa lagu dhisay hadda way kaamilan tahay wayna shaqaysaa dhamaanteed marka taliya waxay sheegtaa ciidamadan awood ay u lahaayeen inay gobolkan amnigiisa xaqiijiyaan iyo dagaalkii ama howlgallada ay gobolka ka sameeyeen natiijooyinka laga gaaray hadda maxaa idin muuqda والله عندك هالقلة فرا بدن أيي قلين إلا حلي قلا أساسي هالقلة فرا بدن قلين هذا وحيك الجوجان قبل قرن يجرا أيي قال الجوجان دقمة محاسي جران دقمة بلوين يجوجان
degmada maxaasii jiraan degmada buloburday jiraan degmadan balweyne meel ka baxsan oo sida buq goosaar buq motor ayay jiraan meelana ciidanka amsom kala howlgalaan meelana keligood ayaa ka howlgalo joogo marka howlgallo fara badan way galeen oo howlgalkii buloburday lagu xoreeyay ayay qayb ka ahaayeen iyagu hormuud ka ahaayeen kii maxaas lagu xoreeyay hormuud ka ahaayeen kii wadooyinka dadka tabaalaysan dhibaatada mataqaanaa looga saarayay sidii raashinkii weynaa ay Djibouti bixisay oo dadkii aad u dhibaatada ugu haysatay buloburday loogu gurmaday ayaan aniga hogaaminayay oo mataqaanaa aniga hortooraha iyo gidda wada soconay Cismaan Dubadinka Amsom taxayso ayay ku jireen howlgalaasi ka qayb qaadanayeen iyo howlgallo fara badan oo Beledweyne cadowga wuxuu isku dayay inuu hankii dawladnimo uu dib u burburiyo duulaamo ka soo qaad magaalada Beledweyne 25 duulaan ayay ku soo sameeyeen cadowga oo ay ku doonayeen inay dib mataqaanaa ugu qabsadaan 25 duulaan bay ku jabeen dhimasho dhaawac fara badan way ka soo gaartay intaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ayagoo kaashanay ciidanka Amsom ayay qabanayeen guutadan Toomaad marka howlgallo aad u ballaaran oo runtii laf dhabar u ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayay guutadani gashay oo guulo aad u fara badan ay ka soo weysay wayahay raashinka saxayda ee buloburday la geeyay say ugu suurta gashay maaragtay nimankii wadaday galayeen dagaal ay sameeyeen qaabkii u suurta gashay waqtiga noo sheegay wallahi waan ogeyn inay wadada ku jiraan waliba waxaan marnay wadooyin badan jiro wadada aan islahayn waa ugu adag tahay sababtoo wadada laamiga anagu dalna laba ujeedo ayay ahayd qayb waxay howlgalkii Indian Ocean ee dawladdu ay amarka ku dhiibtay inaan qayb uga noqono wadadaasna la furo oo muddo 7 sano 6 sano iska xirey qaybina waxay ay raashin Colonel Tawane Ahmed Gure ayuu ahaa taliyaha guutada 10aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee xaruntooda tahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ka waramayay ciidankaasi guutada 10aad ee halka ku sugan iyo awoodooda heerka ay gaarsiisan tahay iyo habka loo diyaariyay gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka bandhiga waraysyada ayaan isla soo gaarnay caqiil ayaa dhinaca raadiyaha barnaamijka farsameynayay kaamirada iyo editinka ama habaynta barnaamijka waa Axmed Carab aniga warcadiya barnaamijka waa idin soo saaray halkan oo idin kala socodsiinaya Ismaaciil Mukhtaar Cumar Oranjo ayaa gacan iga siiyay asxaab kale oo kamid yahay Cilmi Maxamed Waare iyo Jacfar Kukay intaan mar kale kulmayna dhamaanteen oo isku duuban waxaan idin kaga tageynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh